Warbixinta la yaabka leh ee aan maanta soo qaadan doono ayaa waxa ay noqon doontaa haweeney lamaanaheeda nolosha u dooratay ay in muddo ah dhaxanta ka hogsanaysay. Haweeney degan magaalada Devon ee dalka Ingiriiska ayaa goosatay inay meherkeeda ku xirato ay aad u jeceshahay, waa sida ay qortay jariiradda Metro ee dalka Ingiriiska ka soo baxda. Haweeneydan oo la yiraahdo Pascal Selig oo 49 sano jir ah ayaa sheegtay in go'aani uu aad ugu dhow yahay qalbigeeda, markastana uu la jiray xilliyadeeda farxadda iyo waqtigeeda murugada. Waxay tiri, aad ayaan u jecelahay, waxaan doonayaa inay dadku xaadir noqdaan oo ay indhahooda ku daawadaan marka uu meherkaygu dhacayo. Waxaan ka helaa raaxo, qalbigaygana wuxuu galiyaa farxad. Waxaa qorshaysan in guurkaygu uu dhaco 10-ka Febraayo ee soo aadan, waxaana u soo xiran doonaa dharka arooska, xafladayda, dharka caadiga ah aan guriga ku joogo. Dadka ay xafladda ku casuuntay waxa ay kula talisay inay xafladda ku yimaadaan sandal iyo dharka hurdada. Haweeneydan waxaan guud ahaan intaas ku soo afmeeraynaa warbixintan cajiibka ah aan ku soo qaadanay haweeneydan.